asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada manfac t v qodobada wararka caalamka xilligan aan idin hayno waxaa ugu waaweyn madaxweyne trump oo meesha ka saaray suurtagalnimada in ukraine ay ku biirto neto iyo cadaadis xoogan oo la saaray zelenski midowda reer yurub iyo trump oo washington oga arrinsanaya soo afjaridda colaadda ruushka iyo ukraine waa sidee rajada laga qabo in lagu guuleysto wadahadalladaasi xilli ruushka uu weli wado weerarada ka dhanka ah ukraine warbixin ayaan idinkaga haynaa iyo xiisadda hindiya iyo maraykanka oo weli cirka isku sii shareerayso iyadoo hindiya lagu eedeynayo in ay garab siinayaan ruushka qodobada iyo qodobo kaleoo dhammaystiran ayaan idiin soo gudbinaynaa waa maalinimo isniina taarikhdu maanta waxay ku beegan tahay 18 bisha 8 ee agosto sanada 2025 anigoo cabdiraxmaan sheekh yuusuf ayaa idinla socodsiin doonaa warbixinadaasi qodobadooda qaybta hore aad ku maqasheen fadlan laygaree oo nala wadaag aragtidaada qaybta faalada aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kordhiyay cadaadiska ukraine si ay u aqbasho heshiis lagu soo afjarayo dagaalka ruushka isagoo sheegay in madaxweynaha ukraine zelenski in uu dooran karo in uu dhameeyo dagaalka isla markiiba xilli uu la hadlayo zelenski maalin ka hor booqashadiisa aqalka cad ee isniinta oo maanta lagu wado inay isku horfariistaan trump iyo sidoo kale zelenski iyo midowda yurub waxa uu uga digay soo celinta krimiya ee ruushka uu qabsaday iyo xubinimada neto ee ukraine in aysan ka mid noqon doonin waxa heshiiska looga arrinsanayo arrimaha soo afjaridda colaadda ukraine iyo ruushka hadalka trump ayaa yimid iyadoo hogaamiyayaasha yurub ay ku wehelinayeen zelenski booqashadiisa washington d c ee maraykanka isniinnimada maanta iyadoo walaac laga qabo in madaxweynaha maraykanka uu saxiixo heshiiso u badan danaha madaxweynaha ruushka valadimir putin zelenski xilli uu hadal ka jeediyey axaddii kadib hadalka trump oo uu ka jawaab celinaya ayaa sheegay in tanaasulaadii hore ee la sameeyey ama loo sameeyey moscow ay ku jirtay krimiya ay keliya dhiirigeliyeen putin inuu dagaal cusub bilowo waxa uu yidhi ma aha sidii hore ay u ahayd markii ukraine lagu qasbay inay ka tanaasusho krimiya iyo qaybo ka mid a bariga donbass kadibna putin uu adeegsaday sidii meel uu weerar cusub ku bilaabayo ama amarkii ukraine la siiyey dhanka in loo damaanad qaadayo ammaanka 1994 balse taasi aysan shaqaynin ama hirgelin zelenski waxa uu ku daray in krimiya aan loo bixin waayin sidii ama qaar ka mid a shacabka reer ukraine aysan uga tanaasulin ama uga tanaasuleynin kiev odessa ama kharkiv kadib 2022 inkastoo trump uu sheegay in heshiis lala gaaro moscow uu ku jiri karo iswadaarsi dhuleed zelenski waa madaxweynaha ukraine marar badan ayuu diiday in dhul la siiyo waxa uu ugu yeeray gumaystaha si ay trump ugu cadaadiyaan taageerada ukraine hogaamiyaasha reer yurub oo uu ku jiro madaxweynaha guddiga yurub ra-iisul wasaaraha jarmalka madaxweynaha faransiiska macron iyo qaar kale oo badan ayaa ka qaybgelaya wadaxaajoodyadan la filayo isniinta in uu ka dhaco aqalka cad washington d c macron ayaa axaddii sheegay in yurub iyo zelenski ay soo bandhigi doonaan mowqif midaysan oo ka dhanna tallaabada ruushka uu inta badan uu duulaanka ugu soo qaaday ukraine inkasta oo trump uu meesha ka saaray suurtagalnimada ukraine inay ku biirayso neto wakiilka gaarka ee maraykanka witkoff ayaa horey u sheegay in putin uu ogolaaday inuu taageero damaanad amni ah oo la mid ah qodobka 5aad ee neto intii lagu guda jiray shirka alaska qodobka 5aad waxaa ka mid ah in weerar lagu qaado dalka tirsan neto waxaa loo arkaa weerar lagu qaadaya dhammaan xubnaha neto dhanka kalena la taliyaha ganacsiga aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in iibka shidaalka ruushka ee hindiya ay maalgelinayso dagaalka moscow iyo ukraine isla markaana waa in la joojiya iyadoo washington ay kordhisay cadaadiska delhi si ay u jarto shidaal ka yimaado ruushka waxau ku daray in ku tiirsanaanta hindiya ee ruushka ay ku tiirsan tahay dhinaca shidaalka ay tahay fursad markaasi iyo mid halis ku ah dadaalada caalamka ee lagu go'doominayo dhaqaalaha dalka putin dalkaasi ruushka ee uu hogaaminayo madaxweyne putin hindiya waa mid ka mid a iibsadaha labaad ee ugu weyn shidaalka ruushka kadib marka laga yimaado shiinaha in ka badan 30% shidaalkeedana waxau ka yimaadaa moscow taasi oo lacag u keenta ama lacag gaarsiisa aqalka kremlinka ee ruushka xilli cunaqabateen reer galbeedku ay saareen horaantii bishan madaxweyne trump waxa uu kusoo rogay 50% canshuur dheeraad ah badeecadaha hindiya sabab la xiriira arrintan taasi oo khilaaf ka dhex dhalisay xiriirka maraykanka iyo hindiya xuska maalintii madaxbanaanida hindiya ee jimciya u dabaaldegaysa ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi waxa uu sheegay in dalkiisa uu difaaci doono bereleyda isagoo si adag uga jawaabay canshuuraha maamulka trump uu u fidiyey ama uu ku dhuftay
dalkaasi hindiya waxay ruushka ka dhigatay saaxiibka ugu dhow ee dhanka difaaca iyadoo hubka intooda badan oo ay ku jirto nidaamka difaaca gantaalada uu ka yimaado Moscow inkastoo dagaalka Ukraine uu socdo. Modi waa ra'iisul wasaaraha dalkaasi hindiya weli waxa uu kulan kula yeeshay Putin magaalada Moscow. Si kastaba haatee New Delhi dalkaasi hindiya waxay sidoo kale sanadihii lasoo dhaafay xiriir la sameysay Washington iyadoo xiriirkooda loo qaaday heer istiraatiiji ah. Labada dal waxay wadaagaan ganacsi sanadlaha oo gaaraya 128 bilyan oo dollarka Mareykanka, balse Trump waxa uu doonayaa in uu yareeyo farqiga isla markaana uu hoos u dhigo farqiga u dhaxeeya Mareykanka Hindiya ee 45 bilyan ee dhinaca Hindiya loo badinayo. Mareykanka waxa uu arkayay Hindiya inay tahay difaac ka dhan ah Shiinaha oo soo kacaya isla markaana in uu Shiinaha ka soo dhaweysanayo, balse talaabooyinka cusub ee maamulka Trump waxay u muuqdaan inay Hindiya ku riixayaan in xiriir ay la sameysato Shiinaha. Ra'iisul wasaare Modi waxa uu qorsheynayaa in uu booqdo Shiinaha dhamaadka bishan, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha uu ku sugan yahay dalka Hindiya isla markaana Isniinta booqasho 2 maalmood ah halkaas ay uga bilaabanayso si ay uga wada hadlaan xuduudda muranka ka taagan. Waxa uu ku sheegay in Hindiya ay ku soo dhaweynayso Ruushka iyo Shiinaha. Haddii Hindiya ay rabto in loo arko saaxiib istiraatiiji oo Mareykan ah, waa inay sidaas u dhaqantaa baa la yiri. Waxa uu la taliyaa arrimaha ganacsiga ee Mareykanka oo intaa ku daray in ay khatar ku tahay in teknoolajiyadda casriga ee Mareykanka la siiyo Hindiya iyadoo xiriirkeedu sii xoojinayso Ruushka iyo sidoo kale Shiinaha. Waxa uu la taliyaha sidoo kale sheegay in uu yahay mas'uulka labaad ee Trump oo uu ku eedeeyay Hindiya in ay maalgelinayso dagaalka Ruushka ee Ukraine. Toddobaadkii ugu horreeyay Agoosto, Stephen Miller oo ku-xigeenka madaxa shaqaalaha aqalka cad ayaa sheegay in iibsiga shidaalka Ruushka ee Delhi uu yahay mid aan la aqbali karin. Waxa uu Trump si cad u sheegay inaysan la aqbali karin in Hindiya ay sii maalgeliso dagaalkan iyadoo iibsanaysa saliidda iyo sidoo kale shidaalka Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa sheegtay in dalkooda si aan cadaalad ahayn loogu eedeeyay iibsiga shidaalka iyo saliidda ka imaanaysa Ruushka xilli Mareykanka iyo Midowga Yurub ay weli badeecooyin ka iibsadaan Ruushka. Midowga Yurub iyo Mareykanka waxay Ruushka kala ganacsadaan wax ka badan inta Hindiya ay la gashto ama ay la sameynayso, taasi oo Delhi ay ku doodeyso. Inkasta oo ganacsigaasi si weyn hoos uga dhacay tan iyo markii Ruushka uu qabsaday Ukraine Febraayo 2022. Sida laga soo xigtay Midowga Yurub, wadarta ganacsiga Ruushka waxa uu ahaa 76.5 markaas lacagta Eurowga ee bilyanka iyo 77.9 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo hoos u dhacday 2024 257.5 euro bilyan, taasi oo u dhiganta 297.4 bilyan oo dollarka Mareykanka 2021. Midowga Yurub ayaa sidoo kale sii wada iibsiga gaaska Ruushka 105.6 bilyan oo lacagta Eurowga oo gaas ah tan iyo dagaalka Ruushka, taasi oo u dhiganta 75% miisaaniyadda militariga Ruushka ee 2024. Sida ay sheegtay macadka Finland ee Center for Research on Energy and Clean Air. Ganacsiga guud ee Mareykanka iyo Ruushka 2024 waxa uu ahaa 5.2 bilyan oo dollarka Mareykanka iyadoo uu si weyn uga hooseeyay 36 bilyan oo ahaa sanadii 2021. Mareykanka iyo Hindiya waxay muddooyin bila ay ku jireen wada xaajood ku saabsan heshiis ganacsi oo xor ah iyadoo Trump uu ku eedeeyay Delhi inay ka hor istaagto badeecadaha Mareykanka iyadoo canshuuro culus ay saarayso. Si kastaba haatee, booqasho qorsheysan oo ay wakiilada ganacsiga Mareykanka ku tagi lahaayeen New Delhi 25 ilaa 29 Agoosto ee sanadkan ayaa la hakiyay sida ay u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Warbaahinada taasi oo dib u dhigtay wada xaajoodada ku saabsan heshiiska ganacsi ee la filayay in uu yareeyo canshuuraha dheeraadka ee lagu soo rogay badeecadaha dalkaasi Hindiya. Guud ahaan inta ayaan kusoo gunaanudaya wixii waraa oo caalamka inooga yimid. Wixii warkaasi kusoo kordho wararkayga dambe ayaad ku maqli doontaan. Waxaan isha ku haynaa oo aad u indhendheenaynaa booqashadan madaxweynaha Ukraine uu ku gaaray magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka iyo midowga reer Yurub oo halkaasi iyaguna gaaraya si loogu arinsado xalka madambeysa oo la doonayo in la dhex dhigo Ruushka iyo sidoo kale Ukraine ama laga gaaro dagaalka ka dhanka ah Ukraine ee Ruushka ay wado. Guud ahaanna inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. Fadlan subscribe inoo saar, like garee muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada, u sii share garee dhammaan saaxiibada kugu xidhan si muuqaalada kale aan soo gudbino ay u helaan.